iskugu imaanay halka dabaaldega maalinta naafada oo sanadkaas la dabaaldego taariikh 3 bisha 12 dadka disable anaka markay Soomaalidan ay weydiis jiis yaabay kuwan dhutina faadamo oo kale waqana qaadil disable ka dadka indhoolada ma dhahan waa jiis dhagoolada ma dhahan waa jiis waxay ku dhahayn jiiska ma ku jira indhoolku ya waraad is a sexual minority yaabay wajar waan qabna laakiin dadkeen ma fahansana maxaa kale ku daray waxaan ku daray guriyaasha lama la galay waxaan rabnaa dawladda county-ga inay naga warqabto runtii waxaan u aamusnayo dawladda maxaa wax noogu diri waay aan u lahayn jiir xalo lugeelkiisa aan ognaa xagga naafada marka la gafanaaga waa runtii waa nin maartay naga warqab waa oo haddaan u tagnaa taa jidka markaan ku aragno waa joogsanaa waa run waa duceynaynaa insha Allah taala sababtoo waxaan saas u leeyahay dhibaan arkay dhibnahay waa ducadan macnaa waa yani afka soo mar ama waa duceynaynaa marka waa dhibnahay waa mishaar la soo qaato anagu dul qaato halkoo disabled boo ama dadka xoog la kugu soo noqon maayeen laakiin anaga naafada waa isu daryeelina isku soo noqonayna marka hada 20% noola qoro kaasa shaad lacabayna midka kale mishaar qaadanayna marka dawladda county-ga Allah barakeeya wasiirkeena iyo ku xigeenkiisa county-ga dhamaal Allah barakeeya waxaan codsanaynaa wasiirka salaantayn gafanaaga salaantayn in noogu lageey dadka naafada bire ma haystaan biskile ma haystaan dibka haysto midaas ay tuway marka waxaan codsanayaa gafanaha akhbaarta u diraya in nolol furo wajaha rehabilitation center taasayto awgeed waxaa jirta caruur yaroo 5 jir ka weyn ilaa 10 jir u dhaxay miyiga baadiyaha ku nool yihiin markii la guura ama awrka la saar ama kareeto marka maamadu ku rafaasantahay haddii maashaad la keeni lahayna waxay noqon lahayd hooy u noqon lahayd iskuul baa ku jira dugsiga ka bari lahayn tacliina ka bari lahayn wixiina xabal lagu maayo ani Cabdi Bilowhan maanta waa faraxsanahay county government in particular the Department of Education ilaahay in la jira gacantiin ha koraysa our honorable members of county assembly we appreciate for your attendance and thank you very much laba dowladaan qabnaa Kenya nadaanay so national government meesh kama muuqato totally Mustanarengo and team are not represented. I don't know why. Even a single chief is not here. But the county government, the person in command at the highest level of this department is available. So that shows clearly Wajir county government is concerned, very much concerned about the issues of disability. Bravo, 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 county government of Wajir. Ilayna Elijira. Arna in loo hagaajiyo sensitization, in loo hagaajiyo civic education. حقوقهم الفانسي لرجستر جري some people they just need uplifting وحيرة إسكي باين some people حيو باين wheelchairs some people عنتودي لعون لها إلهين مترس كوساحن لين إلهين تدو حجر مترس تدو لو كر قبين كرو كوساحن كرنا جرت مركان ولا ليالو وحن نكبرينا departments دت كان هلو جرجارة ودت كمان تيدين بعناي مش أنا 5 سنة للجوجيا 5 سنة هورا ميبي دت كان حقوق ده فهذه وحن نور ما يا عبدي لكن 5 سنة idinka joogtiin waxa la mawaarisid waraa ka hera marka walaalo dadkaanayta garab hala siiyo markii umtida ay ka soo dhamaata oo assembly la keena maxan ballaynkii qaadayna aan ku hadlayo afka MCA-ga intaan si degdeg ah ayaan gacan ku siina on ku marin insha Allah anaga idinkana shukaansada arooskiina aanay xabideeqa insha Allah hadana nahay leader hadana ku sii jiro kee kala waa in saacideena inkastoo wiilashana saacideena ina shukaansatin oo ninka keentin oo maxaa la dhahaa waxaan kugu darno in soo ururinayna saadaad hadhowtay cunugaada asdabka ku shido asbiri ku shaqeeya at least asku jiidoos ku wada because waalidkaada daas weyna tadhow ku mijiiday cunugaada ina isku saacideeya idinkana hadhihina qof naag naafa lama guursanayo waa la guursan karaa naag naafa meeqan ilmo dhasho naafa wala qabaan alxamdulillah walaalkay oo kala ilmihiisa waday wilshay oo hore ku waday jidka ku waday subaxina u soo shaqeynay hada u weynaadeen alxamdulillah idinkana saasaan ka rabnaa ilmaha deeqda Allah bixiyo qof wax arkaysa 6 lacag oo shaqeyna lacag meelaas dhiga way ilmana aan qabin laakiin ilaahay ma dhihin dadka curyaama hadana ilmo ma qabaan ilmo waa helaysiin dadaal anagana waa in saacideynayna nimada ama naafanimada waa waxad ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ku tiragalay anagana waxaan u maleynaa waxaan aaminsanahay muslim ayaan nahnay 5 tiir islaan oo maarta ana aaminsanahay iyo 6 iimaan
wax alla wixii ilaahay noogu qadiray waxaan rabnaa inaan ku sabarno taas horta waa iyaga niyadis insha allahu tacaala sidaa tahay sidii ugu khayrka badneed oo ilaahay kula doonay wax kuu dhama malaha taas niyada insha allahu tacaala u sheega ilaahayna aan ku shukrina mada kale department ahaan ama anaga haddaan ahnay waxaan idin ballan qaadaynaa ilaahay hortiisa iyo adinka hortiina xuquuq aad adinka leedihiin in aan dhuminin ama ay idin dawmarin aan idin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala maxaa yeelay dadka ugu habboon in la garab istaago run ahaantii waa idinka haddadaan aan hadlahayna waxaa ku jirto storeka education baalahan oo scratchers la dhaha ama ulaha lagu socdo qayb ka mid ah ayaa taala ninkii aan haysanin insha allahu tacaala ha u imaada directorgeeda insha allahu tacaala aniga oo amar aan siinaynaa qofka imaada oo istaahila inuu baalahaas la siiyo waa la siinaa insha allahu tacaala mada kale waxaan idin ballan qaadaynaa waxaa jirta dowladda lacagti loogu tarigalay in loogu deeqa dadka ma aragtay naafada ah waxay ahaan jirtay sanadka hadda la soo dhaafay waxaa qorneed 14 milyan laakiin marka aan waraystay wixii dadka soo gaaray waxay 10 milyan laakiin gaabanaag khayr allah siiya waxaad ballan qaaday inuu kordhin doono waqtiga campaign-ka waana kordhi haddadaan waxaan idin sheegayaa idin xaqiijinayaa 40 milyan in sanadkaa la bixin doono insha allahu tacaala mar dhow wiigaa soo socda ama wiiga ku xigana xerig laga jari doono insha allahu tacaala taas waxay ka dhigan tahay dadka ma aragtay hadda wajeer ku saabsan inta joogto waxaa anaga noo qoran 40,000 oo ruux inay la nool yihiin ama ay qabaan naafanimo qayb ay ka noqotaba laakiin dadka diiwaangalsan waa 3,500 kale marka waad dareemi kartaa culayskaas meeshaas ka jira dadkii waxay u dhib qabaan run ahaantii in la diiwaangeliyo sharciga ama dowladdana waxaa waaye ma siinaysa lacagta qof aan diiwaangalsaneen oon kaar haysan marka tan insha allah anaga oo la kaashanayna departmentka health waxaan insha allahu tacaala dabagelaynaa sidii ma aragtay dadkeeni loogu fududayn lahay in la diiwaangeliyo run ahaantii kuma haboono in qof laga soo qaado korondiile oo soo aado wajeer siduu ku register karee so insha allah weekan soo socdo waxaan la fidhiisanaynaa xafiiska registrationka idaaradda health oo walaalkeena aad u joogi iyo xafiiska national council of persons with disabilities waxaan go-aan ka gaarina insha allahu tacaala in dadka loogu tago sub counties iyo wards oo laga soo registeray insha allahu tacaala ayaan ka codsanaynaa gaabanagan hadda hor waan u sheegnay waana noo ballan qaad inaad wax nagala qaban doonto waxaa jirta sharciga sida laidin sheegay waxaa agta wax la dhahaa amaba sharciga waa la mariyey laakiin qodob waxaa jira aad ka maarmin oo dhaqangelinaya ama hergelinaya sharcigaas oo yeela hadda baarlamaanka wajeer county assembly insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay noo fududeeyaan siduu u dhaqan gala insha allahu tacaala sharcigaas ayagana waa inoo ballan qaadeen waxaa jirta countiga inay siinaysa dad tiradooda ay tahay 262 ruux ayaa hadda ku jirta cash transfer 262 ruux oo qaadanaya lacag 4,000 bishii laakiin insha allah sanadkan dhexdiisa lacagtan aan sugayna waxaan ku dari doonaa 500 ruux oo kale maadaama lacagta la kordhay waxaan rabnaa inaan ku darno 500 ruux marka dadka sanadkan ka faa'iidi doono lacagta ay noqdaan 762 ruux ugu yaraan inay gaartaan insha allahu tacaala rajaynayna intaan u imaadin waxaad ka hadasheen in xoogahoo markaad xaflad saan kale u imaadiin aad dib ku qabtiin transport ma laha gaari linku soo qaada adinka haddana meeshaan ku rafaadaysiin waxaan rabaa inaad ogaatiin ka bilaabata midda maanta aan joogno fadhiga maanta aan joogno qof kasta oo meeshaan imaaday transportkiisa isku imaaday iyo isku noqday jeebka loo gelinaa waa saa la tagaa insha allahu tacaala qof kasta gacantiisa ayaan ugu wareejinaynaa markaad gaari wixii isku soo raacday iyo wixii iska soo raacday iyo wixii inaad iska bixis waxna ay kaaga soo heraan isku dayna insha allahu tacaala maanta inta markaad ka tegaysiin waa la galbanaysiin midda kale waxaa noo diyaarsan oo ugu talagalnay inaad nala qadaysiin insha allahu tacaala qada ayaa inta ninkuu keenaya qadada hadda waa diyaar marka hadda shirka aan xirna qadadaasaas qadaynaysiin waxay idinkaga talagaleen lagu wareejinaa sidaasaas gaarigiina aad ku raacaysiin midaasna ogaada insha allahu tacaala midda kale waxaa jirta lacagaha loogu talagalay guurka ood ka hadasheen annaga ayaynu hoos imaaday insha allahu tacaala waxaan idin ballan qaadaynaa annaga haddii lacagtaas sharci loo helo ilaa hadda sharci lagu isticmaal lama haayo
waxaan naga caawin doona walaalaheen annagana wax baan diyaarin haynaa meesha aan geeninay haddii loo hela shardiga ugu weyn inaan ka dhigi doono qofka curyaanka inaan laga boodayn guddi ayaa la dhisi doonaa guddigaas waxaa idiin ballan qaadaynaa inuu qof curyaanka ka mid uu ku jiri doono dadka curyaanka oo doonaya inay guursadaan ama la guursado in aan ma aragtay arrintaas aan wax ka qaban doono insha allahu tacaala midda kale waxaa kale oo ka baxsan lacagtaas oon raba hadda inay dhegayin ku maqashiin waxaan maqlayaa xoogaa gabdhaha curyaamaha ah sidii ragga camal ayagoo curyaan isle haddana waa la sii ayaga waa la sii gacan bidxayna waxaan rabnaa haddan Fatuma and the likes inaad soo ogaatiin gabarta curyaanka ah oo damacsan inay guursato oo zawjka ay guursan lahayd soo heshay laakiin dhaqaale la'aan ay isu dhaqaajin laadahay inaad hadda soo aragtid oo noo keentaan rabnaa insha allahu tacaala lacagta lama sugayn contribution aan u sameynayna governor aan ka bilaabaynaa deputy governor wasiirintan ka aruurinaa insha allah gabadhaas waa u guurinaa waa balan haddaba soo arag adalf noo keen adiga insha allahu tacaala